Soomaaliland la saano haduu Soomaaliland ka hadlayo laakiin soo xuduuda ka hadlayo anna kama hadli karo Daawud ma kama hadli karo waa muqaddas Soomaaliland xuduudeedu waa ilaa iyo cada waa sida international loo qaabilsay taasaan aaminsan juqraafi ahaan haduu ka hadlayana waxa weeye waxaan leeyahay waa Soomaaliland la saano waxaanu ka aaminsanahay jabadii oo noole faynta Itoobiya ku kacday waagii mid la sanaawi isu soo dhiibay waqti dambe horta laba oday baa meesha ka hadlay oday xariifa oo la yiraahdo Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa hadalka soo jeediyay waxay ahayd hadal dhex maray laba nin oo aan isaqoon oo magaciisa xataa muusixin markuu la hadlayay ayuu ugu yiri laba nin aan isaqoon baa horta meesha ku wada hadlay qadiyad aan iyaga khusayna way ka wada hadleen labadooda qadiyad ka dhaxaysa ay ka wada hadleen marka Daawud yare marka aan ka bilaabo isaga in yaroon adeer ahay weeye aabihii baan saaxiib ahayn qoyskoodii iyo soo jireenkoodii saldanad qaali oo rag qiimali ka soo kaliyeen ayuu ka soo jeedaa ixtiraam badan aan u hayno maanta Daawud yare aabihii way gala ballamay waxaan ay rag la rabo inuu barbaariyaan inay hadii alla baleeyo saldanada ku ilaaliyaan inay khaladaadkiisa toosiyaan ayaan ka mid ahay marka taa waxaan ka soo qaadayaa raaga ugaas ninkii loo oran jiray raaga ugaas warfa ugaas faarax oo nin qiimo badan oo ugaas Xuseen loo oran jiray inay walaalahaayeen saldanadii maalin guur ee caan baxday ayaa waxa dhacday xiriir wanaagsan baa dhex maray iyaga iyo saldanadii Habar Yoonis qoyska labada qoys abaal la isku yeeshay marka nin qoyskan saldanadii Habar Yoonis ka mid ahaa oo xirsi boqol loo oran jiray oo gabya ahaa ayaa meel hadal kaga tuuray shir uu ka maqan yahay raaga ugaas warnimankii daaroodiyaa joogay baa la yiri oo dabadeedna wax lay qolasi waqruna joogtay gabay buu kala dulnacay ma doonayo gabaygaasi waqroonta uu ku yiri inaan ka hadlo ma doonayo laakiin hadalka murtidiisii ugu fiicnayd baan ka soo qaadanayaa raage xirsi halkuu ugu jawaabi lahaa wuxuu yiri gabay buu ugu jawaabay wuxuu yiri surqin baan ku jiriqsiin lahaa sida sagaaraade sanduuq baan ku aaburi lahaa suumadaayaa sada aabaha galay bariyaad sama aabaha galay bariyaad sada ku maashaay samaanteeda Habar Yoonis baan salax rogayaaye aku reer suldaan diiriye sugu lacayna shii marka salax rogu wax weeye markaad ka xishoonayso qofka dhafurada marka Daawud yare horta isaga kelmad ma oranayo maalin horena waxaan ku yina ka adeer baan waa la iga tagay saldanada uu ka soo jeeday reer guuleed ama ciida gale ayaa ixtiraam badan naga dhaxaya isagana waa la igala dardaarmay ciddaase haddii khaladaad laba jeer ama saddex jeer ba uu ka yimaado sixideeda leh waa reerka saldanada ay ka soo jeedo iyagaan u dhaafayaa wixii sixitaana anigu laakiin inaka adeernimadii iyo ballantii la igu ballamay odayga kale ee hadlay Garaad Jaamac la yiraahdo waxaan filayaa arrintu halka ka weydiisanayay macnaheeda gundheeraanteeda waxa weeyaan qaab dawladnimo u hadlay anigu waxaan aaminsanahay ama Soomaaliland inuu ka mid yahay inaanu ka go'ay karin ka bixi karin isaga iyo reerkiisu toona laanahu ingiriiskii qaybiyay maalinta jigjiga soo noqoto oo garaad kulmiye oo isaga iyo absame oo calan sitaa halka ka yimaadaan oo ogaadeen iyo absame ba ka yimaadaan nimanka la yiraahdo Itoobiya ka soo xoroobaan waxaan filayaa calanka uu qaato maalinta waanu aqbalaynaa anagu laakiin xuduudihii maalinta la qaybiyay gaalkii qaybiyay hadii alla baleeyahay qaybiyay Soomaali qaybiyay koonfur iyo galbeed iyo Itoobiya iyo NFD qaybiyay taas baa xuduud caalami ah taas baanu aaminsanahay juqraafi ahaan haduu ka hadlayana waxa weeye waxaan leeyahay waa Soomaaliland la saano waxaanu ka aaminsanahay jabadii oo noole faynta Itoobiya ku kacday waagii mid la sanaawi isu soo dhiibay waqti dambe waxaan aaminsanahay haday waqtigii Muuse biixi dagaalameen oo jabhada kaceen maalma guuleysteen dhawaan anagu waxaan filaynaa inuu Soomaaliland isaga reerkiisu u yimaadaan
inaanay kana bixi karin oo xuduud ayga bixi karayaan iyo xamartan ay ku boodayaan iyo meeshan aynu ku socotaana aanay midna suuragal ahayn juqraafi ahaan haddii laga hadlayo dalku uu ka hadlayaa waa somalilan haddii lasii kala sii hadlana waa sool iyo sanaagna anigaa dega soolna majoritigiisa anigaa leh meel uu haddii aan laba leeyahay ay ka wada hadlaan hadday beelag u wada hadlayeen ciidagale iyo bahararsime u wada hadlayeenna dee meelay iska soo gaadhaanba ma garan karayo haddii dhulbahantii nabad cid ka doonayo dee oo beela ka doonayo waxa weeye cidduu kala hadlayo wuu garanayaa uu indhuhu iska ridaya xuduud baa bahararsame iyo ciidagale ka dhexeeya ay isku dilayaan oo ama ay ka heshiinayaan ama ay ka wada hadlayaan ama daa'uud yare uu ku mateli karo ma jirto somalilan marka laga hadlayana xukuumad baa joogta guddiyo qaran oo nabadgelye ka shaqeeyaa joogta somalilan markay tahay afka somalilandna kuma hadli karo daa'uud dee garaad jaamac garaad calina ciddaanu nabadda horta marka hore dhulbahanti naga khusaysaa waa axmed garaad iyo maxamuud garaad iyo yaxye iyo haddii aan laba leeyahay reeraha aanu isku deegaanka nahay iyo hayaag iyo intaa xuduuddu naga dhaxayso ayaanu nabad marka hore horta iyaga waanay naga soo wada dooda aan ka wada hadla marka beela laga wada hadlayo wey haddii laga wada hadlayo somalilandna anagu somaliland hadday siyaasad hayda kelmaddaa u jeedayna marka garaad kulmiya calan halkaa kala yimaado oo ka soo go'o etoobiya oo gaalkiina qaybiyey uu yidhahda haddii aan laba leeyahay waa la ictiraafay kililkii shanaad oo aniguna intaydiina ii soo go'do aan deegaanka kaga lahaa waan ogolahay inuu calan halkaa ka ruxdo laakiin maanta heshiis caalami aanu geli karin isaga iyo xukuumaddiisa inuu sheeganayo SSC jabhad baanu ictiraafsanahay tii onoleftii ku kacday ee markay jabtay deedii soo dhiibtay oo kale waadna arkaysaa cidi lama dagaalamayne haddii aan laba leeyahay laakiinse intii dambe dagaalamadu dhaceenba maanta meel uu soo hawaysan karaa oo ciidan ku soo hawaysan karaana ma jirto wada hadalku seel hadday noqonayso qabaa'il loo wada hadlayna cidduu kala hadlaya waa annaga diyaar baanu nahay hadduu qabaa'il ka hadlayo ciddaysi deegaanka iyo hadduu somaliland ka hadlayo laakiinse uu xuduuda ka hadlayo anna kama hadli karo daa'uudna kama hadli karo waa muqadas somaliland xuduudaheedu waa ilaa yoocada waa sida internationally loo qaabilsanyay taasaan aaminsanahay inta aan ka aaminsanahayna intaa wey horta marka hore waxaan uga mahadnaqayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda somaliland iyo wasiiradii iyo madaxdii dowladda ee nala joogtay juhdigay geliyeen waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa beelaha habar jeclo iyo beelaha garxajiis waayeeladooda oo arrinkaa garnaqiisa iyo ka shaqayntiisaba geliyey muddo dhowr sanno ah juhdi badan marka arrinkaas marka laga yimaado waxaan kaloo u mahadnaqayaa labadii beelood oo walaalaha ahaa ee shaqaaqadu dhex martay oo si niyad sami leh qolo walba go'aankii laga soo saaray ay u qaateen waa markii koowaad ee go'aan lagu wada qanco darafyadu ku wada qancaan ay qaateen waxaan odhan karaa arrinkaasi arrin guul ku soo dhammaaday weeye